2024 waxaanu joognaa goobtan joognaa waa xarunta saldhigga koobaad ee Berbera waxaana la joogtaa hay'adda EUCAP waxa dhinacayga arkaysaan oo ka socda dhisme loogu talagalay xarun isgaarsiineed oo badana lagu daawanayo taasoo qayb weyn ka qaadan doonta xagga ammaanka dhismahan wuxuu dhamaan doonaa haddii alla ka dhigo hay'adda waxa dhisaysa hay'adda EUCAP wuxuu dhamaan doonaa bisha 9aad ee sanadkan aynu ku jirno waa tower iyo xarun isgaarsiineed oo weyn ayaa halkan laga hirgeliyay dhismuhuna waa casri waxa lagu daawan doonaa ama uu gaarsiisan yahay 100 newton mayl marka cabirka badda loo eego 100 newton mayl oo ah dhinaca bari dhinaca galbeed iyo dhinaca badda 100 newton mayl 100 newton mayl marka la gaadho oo reed xuduudii inaga Yaman waa la joogaa dhismahan iyo hirgelinta mashruucani wuxuu wax weyn ka tari doonaa horumarka ammaanka badda Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku soo kordhin doonaa access iyo xoog badan ciidanka ilaalada xeebaha waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa ta'ala xagga bani aadamka waxaan uga mahadnaqaynaa hay'adda EUCAP oo ay nagala joogaan maanta qoliyahan dhinacyadeeda wafdigan ka socda hay'adda EUCAP oo madaxdii hay'adda EUCAP ka mid ah iyo xafiiskii ka furnaa Hargeysaba sida daraadeed annaguna aad iyo aad baanu ugu qanacnay waxayna qayb ka tahay horumarka iyo dadaalka ay sameynayso gabi ahaanba Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidanka ilaalada xeebaha waxaanu leenahay saaxiibo wanaagsan runtii oo ah xagga dibadda xiriir fiican baanu leenahay ururada hay'adaha madax bannaan iyo dawaayilkaba sida la socotaan Soomaaliland waxay qayb ka tahay mashruuc la yiraahdo IORIS oo Indo-Pacific Regional Information Sharing oo gabi ahaanba badaha adduunka aynu kaga qayb qaadano xagga ammaanka oo aynu wararkan isku dhaafsano dhismahani markaa kaana qayb weyn ayuu connection-ka la xiriirka gudaheena marka laga tago xagga caalamkana uu ka tari doonaa ammaankana qayb weyn ku soo kordhin doonaa aad iyo aad baa mahadsantiin I have to say you thank you very much and nice to meet you all of you thank you